Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan bilaabaynaa projectigan waa masaajidkan waxaa marka hore ugu talagalnay fikrad then designkii iyo naqshadii sketch waa ka tagnay 2D iyo 3D ayaan u sameynay then waa markii 2D iyo 3D loo sameynayo waa waxyaabo badan ayaa la iska saxayaa at least ugu dambeyntii waxaa la isku raacay 3D-ga iyo 2D-ga masaajidka muuqaalkiisa inuu noqdo sidan naqshadan aniga ayaa sameeyay waxaan lagu sameeyay 3D in software-ka Revit ArchiCAD ayaa lagu sameeyay run ahaantii masaajidka 3D-giisa qaabkaas ayuu noqonaa masaajidka laba wada ayaa marto inta meeshan gaduudka boos ayaa ka xigo meeshan kalena boos ayaa ka xigo labada wadan oo u banaan waa wadadan oo highway-ga weynta masaajidka albaabka sirka waa la galaa saddexdan dukaan uu leeyahay iyo wadadaas masaajidka maqaamkiisa horumarto marka 3D-gan markaan sameyno toos oo sixitaanka ugu dambeeya lagu siiyo waxaa la gudagalaa dhismihii loo sameynayo waa waxyaabo badan ayaa la iska saxayaa at least ugu dambeyntii waa la isku raacay waxaana lagu dhaqaaqay in shaqadii sidii loo isku raac loo qabto waa ujeedaan waxaan xiranaynaa tawlooyinkii geeskii dhammaan isbaagooyinkii waa markii naqshada la fadhiisinayo projectkan wuxuu bilowday January haddana wuxuu yahay gabagabo masaajidka waxaa galayso 36 tiir oo column ayaa galayo marka masaajidka aad iyo aad ayaan ugu taxadiraynay maadaama wax la dhisayo masaajid yahay quality-giisa iyo tayadiisa iyo wixiisa dhan marka biyaanateerka wixii ka hooseeyna foundation-ka waxaan kusoo dhisnay dhagax wixii foundation-ka iyo masaajidka dhan wuxuu ku dhisnaa ilaa kor dhagax ayuu ku dhisan yahay haddeertaan berihii ayaan gelinaynaa foundation-kii wuxuu projectigan halahan uu qaatay muddo 8 bilood ku dhow run ahaantii projectigan wuxuu ahaa mashruucan wuxuu ahaa ilaa iyo 2 boos waa 20 lagu dhifto 30 booskii waa 20 lagu dhifto 15 waxaana ka dhisaynay israac xaafadii hadda loo yaqaan jiray qabuuraha barkada ama jaamacadda muqdisho u dhow masaajidkan waa wuxuu ka kooban yahay 2 dabaq waqtiga oo dheer aawadiis qiyaas arbuuxintan meeqa kaariko oo gaari oo caraaw noqon kara 20 lagu dhifto 15 20 lagu dhifto 30 waxaa naga gashay 136 kaariko oo gaariga oo caraa naga gashay waana gaariga yarka ma ahan gaariga 6 loo yaqaan dhulka wuxuu ka sareeyaa elevation 1 mitir ayuu ka sareeyaa that's why oo carab buuxin fara badan ay u galayso